السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. walaalyaal waxaan rabaa banaanbixii maanta ka dhacay xalay maqribkii magaalada muqdisho inaan wax yar ka dhaho. banaanbax hala qabto muxuma, laakiin banaanbax habaysan toosan in la qabta ayaa fiican. nin baa wax dilay, hadduu wax dilayne waxaa la horkeeni karaa sharciga iyo kala dambeynta, laakiin ma aha in aad hantidii shacabku lahaa aada burburisaan. khayre ama farmaajo waa ay tegayaan, siduu xasan u tegay ayaa ayaguna u tegayaan, laakiin hantida dhulka ah ma aha hanti tegaysa, adigaa ka tegaya maahine ayadu mid waaraysa waay. jiilba jiilka ka dambeeya ayaa u hari doona. bilicda iyo quruxda magaalada muqdisho ma ahan in aad u burburisid caro aada caraysan tahay. hantida shacabkaa iska leh, ma ahan baalaha iyo meelaha basweytinka iyo inaad burburisaan. waxaad leedihiin dowladdu canshuur bay naga qaadaa, canshuurteennina wax laguma qabto. meelahaad burburisoo dhan ma adigaa dhistay mise hooyadaa mise aabbahaa dhisay? dowladaa dhistay. dowladdu hadday dhistayne waxaa waaye labada qof ee meesha ku fadhisa ma iska leh, shacabka soomaaliya iska leh. waddada lagu dhisay gawaaridaada maraysa, adaa ku soconaya, iskuulaad aadaysaa, waa laguu fududeeyay. baalahaas laguu surayne waad ifsanaysaayo waxaa waaye mugdigaad ka baxdo, iftiin baad ku jirtaa. lacagtii shalay adi lagaa qaadayaa maanta lagu dhisay, so waxaa loo baahan yahay inaad maskaxdiina ka shaqaysiisaan. arsenal ba hadday wax kaa disho ma raacatide, tan maxaa u raacatay? waa kalsooni aad ku qabtid soomaha dowladda. sax, haa, kalsooni aad dowladda ku qabtid waay. kalsoonina ku qab ninkii wax dilay in lasoo qabanayo, sharciga la saaraayo, hadduu toogasho leeyahay, hadday diya tahay ka wada xaajoonayaan ehelkii ay ku dhintay iyo maxkamadda iyo wiilka ehelkiisa. laakiin ma aha hantidii shacabka lahaa ee dowladdu ay mas-uulka ka ahayd inaad burburiso. berina waxaad ku candacoynaysaa hooyadii nyaanyada gadaysa canshuurta laga qaado wax laguma qaban, maantana adigaa burburinaya, gacantaada ku burburinaya. taas waa dad aanan caqli iyo maskax midna aanan lahayn. waa sidii banaanbixii baydhabo ka dhacay camal, doqonnimada. baalaa la burburinayaa, laamiyaa la jijibinayaa. laami aa jijibisi iyo baalaha burburiso maa farmaajo iskale ma lahan, wuu ka tegayaa meeshaan. beri waxay u haraysaa shacabkay u haraysaa, jiilba jiilka ka dambeeya u harayaa. walaalayaal, waxaan idin leeyahay hantidiina iyo wixiina ha iska burburinina. wax walbuu dhaca qaanuun iyo kala dambeyn iyo sharci ay leeyihiin, sharcigiina u raaca. haddaad laakiin aad ku dheeshaan qof wax idin taraysa ama wax idin qabanaysa ma jirto. doqonnimadana hal iska daayo. kaasaa aniga aan leenahay, calankaasaa leenahay. waa ujeedaan soo maa? adduunyada waa nalaga nacab yahay. haddaa runta rabtaan, adduunyada waa nalaga nacab yahay. so anigu ismaanan jecline, adduunyada lagama jeclaanayo. runtaa idin sheegay, isku bata. shacabow, hantidaas idinkaa iska le, hantidaa iska burburina, hantidaasa iska burburinina. yaa dowladnimadu labada kursi oo ku fadhiisa mar walba way tagaan, laakiin hantidaasu ma tagto, hantidaasu ma tagto. soo mar kale waxaad ileeyahay ramadaan kariim. marka maalmahan barnaamijyada taariikhda aan wadiyo soomaaliya, xogaa ramadaankii aan soo kala dhexgalay, so dad badan ayaa iga soo codsaday inaan sii wado, waana wadi doonaa insha allah.
sidaas ula socda. waana halkaan kusoo gabagabeynayaa dhiirigelintaan wacyigelintaan ku saabsan banaanbixi maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.